الله أكبر. maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 1 bisha Oktoobar 2022 ayaa waxaa gurigiisa rasmiga la geeyay taliyihii booliska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole kaasoo ku geeriyooday qarax miino ku haleelay deegaan hoostaga deegaanka Basra ee xadka ay la wadaagaan Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. taliyaha xilliga uu dhimanayay waxaana ku jiray howlgal ballaaran ay ciidamada dawladda ay ka wadaan deegaan dhaca xadka Shabeellooyinka. kadib salaadii janaasada ayaa lagula tukaday madaxtooyada qaranka iyadoo intaasi loo soo qaaday xarunta ama taliska ciidamada Harmacad ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho halkaasoo lagu aasay. kadib markii la soo gaarsiiyay goobta ayaa lagu tukaday salaada janaasada iyadoona ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiiro, xildhibaano, saraakiil ciidan, sidoo kale ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya boqolaal kamid ugu jiray ehladii asxaabtii gaarka ahayd Allah u naxariistay Farxaan Qaroole isagoona staafkiisa gaarka ah lagu aasay. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay ugu magac daray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka Harmacad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyay ama aan ku dhawaaqayaa xarunta Harmacad ee General Farxaan. magacaas ay qaadan doontaan, magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaashay. daraaday ugu dambeysay aan halka wada joognay wuxuu tusayay ciidanka dhintay uu sameeyey kaarta uu sameeyey uu yiri hebel 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 magaciisii isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegtay labadoodii aan ku darayaa bay tilmaantay. ilaahay ha u naxariisto shakhsi ciidankiisaa jeclaa oo ciidankiisii ilaa shalayto sarkaalkana waxaa lagu gartaa ciidanku xukumaa laga gartaa. midna waxaa leedahay ilaah baana dhaafiyey, midna ciidankii si aanu maaraynaanu garan weyno. ciidankiisaa jeclaa, madaxdiisaa jeclayd, shacabkiisaa jeclaa, magaalada xamar ha laga jeclaa. ilaahay ha u naxariisto. sidoo kale goobta waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, sidoo kalena saraakiil ka tirsan booliska gaar ahaan taliye ku-xigeenka qaybta labaad ee booliska gobolka Banaadir. geerida ku timid walaalkeen wiilkeennii General Farxaan Qaroole iyo intii kale ee la shahiiday howlgalkii dalka looga sifeynayay kooxaha khawaarijta intii kula shahiiday tacsi baan u gudbinaynaa. geeridu waa xaq, laakiin waxaa kala sharaf badan meesha lagu dhintaa kala sharaf badan. wuxuu dhintay Farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadowga baacsanaya, ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya, ayagoo sharaftii iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u taagan ayay shahiideen. waxaanan ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa inuu u aqbalo shahaadadooda. qoyska si gaara aabbaha iyo hooyada iyo xaasaska iyo carruurtiisiina waxaan leenahay sabir iyo iimaan Allah ka siiyo iyo bedel khayr qaba. waxaan rabaa fariinteeda ku xigtaa waxay tahay kooxaha khawaarijtu dee waxay caadaysteen inay ummadda Soomaaliyeed laayaan, aysan qofna u turin, ilmaha yarka, hooyada, aabbaha, shiikha, odayga. waxaana socda dagaal looga sifeynaya dalka. arrinta Farxaan, taliyaha Farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoreynayay kooxaha khawaarijta dalka loogu xoreynayay, bal iska daaya waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda Soomaaliyeed u qabta kooxahaas. qof waliba waqti uu leeyahay, asaguna waqtigiisu maanta ku ekaa. waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto General Farxaan, annagana gadaashiisa ilaahay nama fidneeyo. intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir inay maanta General Farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadowga asagoo ka
dagaalamayo meel ka baxsan gobolka banaadir ee caasimadda lana dagaalamayo kooxaha argixisada waxaan rajaynayaa in qof waliba uu dareemi doono in cadowgan haddii aan lala diriirin in qof waliba loogu soo galayo gurigiisa waxaan leeyahay iyadoo lala diriraayo oo goobahay joogaan lagula diriraayo ha la dhinto hana la dhaawacmo taasaa sharaf iyo sumcad leh waxaan leeyahay maantay waan jeclayn inuu joogo uu noolaado laakiin meesha uu ku baxay wuxuu ahaa shahiid waxaan leenahay allah u naxariisto waxaan ugu tacsiinaya ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool gobolka Banaadir iyo si gaar ah ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ka geeriyooday nin sargaal muhiim ah oo hogaamiye noo ahaa daacada qabli wanaagsan inta ka aqaano insha Allah ta'ala qof walba wuxuu yahay la soo bixin doona waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay qabrigiisa waasiyo jannati firdaws Ilaahay geeyo annagana gaashiisa